их иман. И дай Аллах, чтобы это испытание прекратилось. Дай Аллах баракат. Аллаху Акбар! Allahu Akbar! Walillahi alhamd! In ka badan 1 milyan oo ruux ayaa waxay isugu soo baxeen fagaaro weyn oo ku yaala magaalada caasimadda Grozny ee xarunta u ah Jamhuuriyadda Chechnya ee ka tirsan waddanka Ruushka. Malaayiinta qof ay isu soo baxay ayaa waxay muujinayeen dareenkooda ku saabsan inay la jiraan dadka muslimiinta Rohingya ee dhibaatadu ay ka soo gaarayso qulqulatooyinka ka dhacaya waddanka Myanmar. Boqolaalka kun ee qof ay isugu soo baxay magaalada Grozny ee Chechnya ayaa waxay siteen boorar ay ku xardhan yihiin waxaanu la jirnaa Rohingya iyagoo ku baaqaya in la joojiyo dhibaatada loo geysanayo dadka muslimiinta ah ee waddanka Myanmar ee laga tiro badan yahay. Kumanaanka kun ee qof ee Chechnya isugu soo baxay ayaa waxa caalamka ay ugu baaqeen in wax laga qabto dhibaatooyinka ka soconaya waddanka Myanmar. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna dhankiisa waxa ugu baaqay hogaamiyaasha dunida inay indhahooda ku soo jeediyaan qulqulatooyinka ka soconaya waddanka Myanmar ee ka dhanka ah muslimiinta Rohingya waxaana uu ku baaqay si dhaqso ah in caalamku arrintaasi uga jawaabo. Dhanka kale waxaa sii kordhaysa cadaadiska lagu hayo xukuumadda Myanmar waxaana loogu baaqayaa hogaamiyaha waddankaasi haweeneyda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi inay si degdeg ah tallaabooyin u qaado inkastoo ay jiraan dhaleecayno badan oo caalami ah oo ay soo jeedinayaan ururada xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay kuwa qaramada midoobay oo sheegaya hogaamiyaha waddankaasi inay u muuqato raalli inay ka tahay waxa ka dhacaya dalkeeda. taasi awgeedna waxa isbiirsaday baaqyada caalamiga ah ee xukuumadda waddankaasi loogu baaqayo inay joojiso dagaalada ka soconaya qaybo ka mid ah waddankaasi gaar ahaan gobolka muslimiinta ay ku badan yihiin ee loo yaqaan Rakhine. Warbaahinta caalamka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay tabinaysay muuqaalo muujinaya kumanaan guryaha muslimiinta Rohingya oo dab la qabatiyay dad badan oo la dilay iyo kumanaan qof oo ka mid ah muslimiinta Rohingya oo qaxoontinimo ku galay waddanka dariska ah ee Bangladesh.